Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada saaxiibayaal dagalkeena Ciid Media. Haddaba inta aynaan qisada caawa u gudagelin saaxiibayaal waxaa idinka codsanaynaa inaad channelka subscribe soo tirahdaan fiidiyoogana like saadhaan aynu u gudagelina qisadeena caawa. Ninka aynu caawa ka hadli doonaa waxaa lagu magacaabaa Theodor Herzl. Theodor waa aabihii mashruuca sahyuuniyadda. Haddaba waxaa laga yaabaa qaybtiin in aysan garanayn waxa laga wado sahyuuniyadda. Sahyuuniyaddu waa dhaqdhaqaaq siyaasadeed iyo qarnimo kaasoo soo baxay qarnigii 19-aad. Mashruucaas ujeedadiisu waxa ay ahayd in ay Yuhuuddu helaan dowlad iyo deegaan u gaar ah. Magaca sahyuuniyaddu waxa uu ka yimid buurta Zion ee ku taalla magaalada Qudus, taas oo astaan muhiim u ah dhaqanka Yuhuudda. Saaxiibayaal in aad hadda fahanteen baan rajaynayaa waxa laga wado sahyuuniyadda. Haddaba aynu sheekadeena hore ugu sii soconno. Qarnigii 19-aad Yurub waxa ay ahayd qaarad ay ka jiraan horumar dhanka warshadaha, dhaqaalaha iyo sayniska ah. Balse dhanka kalena Yurub waxaa hareeyay xasarado qowmiyadeed iyo nacayb diimeed. Labadii May 1860 waxaa ku dhashay magaalada Budapest ee waddanka Hungary wiil lagu magacaabo Theodor Herzl, kaas oo aan markaa cidina filayn inuu noqon doono mid ka mid ah dadkii ugu saamaynta badnaa taariikhda casriga ah. Theodor waxa uu ka dhashay qoys Yahuudi ah oo dhaqaale ahaan wanaagsan, balse aan si weyn ugu dheganayn diinta Yuhuudda. Carruurnimadiisii waxa uu ahaa wiil jecel akhriska suugaanta iyo doodaha bulshada, mana ahayn qof ku mashquula arrimaha siyaasadda iyo doodaha qowmiyadeed. Hamigiisa ugu weynna waxa uu ahaa inuu noqdo qoraa caan ah. Theodor qoyskoodu waxa ay u soo guureen magaalada Vienna ee waddanka Austria. Theodor halkaa waxa uu waqtigaa ka helay waxbarasho ay tayadeedu sarreyso, maadaama Vienna ay waqtiga ahayd xaruntii siyaasadda iyo dhaqanka ee boqortooyada. Boqortooyada aynu ka hadlaynaa waa boqortooyadii Habsburg. Theodor waqtigii uu waxbarashada ku jiray qalbigiisu waxa uu u janjeeray dhanka qoraalka iyo saxaafadda. Haddaba intii uu joogay Vienna waxa uu arkayay sida Yuhuud badan ay ugu dadaalayaan in ay la qabsadaan dhaqanka Yurub. Isaguna waxa uu ka mid ahaa dadkii aaminsanaa inay Yuhuuddu si buuxda ula midoobi karaan bulshada ay la nool yihiin, haddii ay wax bartaanna ay ka qayb qaadan karaan horumarka dalka ay ku nool yihiin. Theodor waxaa la sheegaa inuu ahaa nin aan aad ugu dheganayn dhaqanka iyo diinta Yuhuudda, iyo xitaa inuusan si fiican u aqoon afka Cibraaniga. Haddaba Theodor markii uu ka qalin jebiyey jaamacadda waxa uu bilaabay shaqooyin kala duwan oo dhanka qareennimada iyo qoraalka ah, laakiin ugu dambeyntii waxa uu ku biyo shubtay mihnadii uu u lahaa dhanka saxaafadda. Taasina waxa ay u furtay albaab cusub oo noloshiisa ah, iyadoo sanadkii 1891 loo diray magaalada Paris isagoo wariye ka ah wargeyska caanka ah ee Neue Freie Presse. Paris waqtigaa waxa ay ahayd xaruntii siyaasadda iyo dhaqanka ee Yurub, wuxuuna Theodor halkaa ku arkay dunidii ugu ballaarnayd ee uu weligiis la kulmo. Maalin kastana waxa uu baaritaan iyo dabagal ku samayn jiray dhacdooyinka waaweyn ee siyaasadda, isaga oo dhanka kalena la kulmi jiray madax, siyaasiyiin, aqoon-yahano iyo dad caan ah. Bilowgiina waxa uu weli rumaysnaa in ay Yuhuuddu la noolaan karaan bulshada kale ee Yurub, iyaga oo aan wax dhibaato iyo faquuq ah kala kulmin. Laakiin dhacdooyin isxigxigay ayaa si tartiib ah u bedelay fikirka Theodor. Dhacdada ugu weynna waxa ay ahayd kiiskii Alfred Dreyfus. Dreyfus waxa uu ahaa sarkaal Yahuudi ah oo ka tirsan ciidamada Faransiiska, waxaana 1894 lagu eedeeyey inuu sir ciidan u gudbiyey Jarmalka. Dreyfus markii maxkamadda la soo istaajiyey waxaa si bahdilaad ah looga qaaday darajadiisii ciidannimo, iyadoo dad badani ay daawanayaan kuna dhawaaqayaan erayo nacayb ah oo ka dhan ah Yuhuudda. Theodor oo goobtan ka warbixinayay ayaa si aad ah uga naxay waxa ay indhihiisu qabteen. Waxa uuna arkay in xitaa Faransiiska oo lagu yaqaanay xorriyadda iyo sinaanta uu shacabkiisu nacayb aad u xooggan u qabo Yuhuudda. Ugu dambeyntii waxaa la caddeeyey inuu Dreyfus ahaa bilaa dembi. Arrintaasina waxa ay sii xoojisay baraaruga Theodor, wuxuuna Theodor isweydiiyey haddii Yuhuudda lagu takoorayo waddamada ugu horumarsan Yurub sidee ayay ku heli karaan ammaan iyo aqbalaad buuxda. Su'aashaas ayaana maankiisa ka guuxaysa habeenno iyo maalmo badan. Sannadii 1896 ayuuna soo saaray buuggiisa caanka noqday oo lagu magacaabo Der Judenstaat, wuxuuna buuggaasi xambaarsanaa fikradda ah dhisidda dowlad Yuhuud ah. Wuxuuna Theodor buugga dhexdiisa ku doodayay in dhibaatada Yuhuudda aysan ahayn arrin lagu xallin karo isdhexgal bulsho oo keliya, balse loo baahan yahay xal siyaasadeed. Xalka uu Theodor soo jeediyeyna waxa uu ahaa in Yuhuuddu ay yeeshaan dowlad iyo deegaan u gaar ah. Buuggaasina waxa uu si degdeg ah ugu faafay badi qaaradda Yurub. In badan oo ka mid ah bulshada Yuhuuddana waxa ay tilmaameen inaysan arrintaasi suurtagal ahayn, halka qaar kalena ay u arkayeen fikir cusub oo mudan in laga shaqeeyo. Theodor waxa uu bilaabay inuu galo safaro badan, isaga oo la kulmaya ganacsato, aqoon-yahano iyo hogaamiyeyaal Yahuudi ah si uu taageero ugu helo himiladiisa. Dadaalladaasina waxa ay horseedeen in sanadkii 1897 lagu qabto magaalada Basel ee waddanka Switzerland shirkii ugu horreeyay ee sahyuuniyadda ah, waxaana halkaa iskugu yimid boqolaal ergo oo ka kala socday dalal badan. Halkaasna waxaa lagu aasaasay ururka sahyuuniyadda adduunka.
Theodorna waxaa loo doortay madaxweynihii ugu horreeyey. Haddaba markii uu shirkii dhammaaday ayaa Theodore buuggiisii xasuus qorka waxa uu ku qoray hadal caan noqday kaasoo ahaa: Basel waxaan ku aasaasay dowlad Yuhuud ah. Haddii aan maanta ku dhawaaqo dadka oo dhan waa ay igu qosli doonaan, balse 50 sano gudahood dunidu waa ay ogaan doontaa. Shirkaa kadib Theodore waxa uu galay marxalad cusub. Wakhtigaana ma ahayn keliya qoraa iyo wariye, ee waxa uu noqday hogaamiye siyaasadeed kaasoo doonayay inuu fikirkiisa u beddelo xaqiiqo dhab ah. Wuxuuna la kulmay boqorro, wasiirro iyo madax dowladeed, isagoo sidoo kalena booqday magaalooyinka London, Rome, Berlin iyo Istanbul. Waxa uuna markaa raadinayay quwad weyn oo taageerta mashruuciisa. Indhihiisuna waxa ay si gaar ah u hayeen dhulka Falastiin, maadaama ay u lahayd muhiimad taariikheed iyo diimeed oo weyn. Hase yeeshee Falastiin wakhtigaa waxa ay ka tirsanayd boqortooyadii Cismaaniyiinta. Theodore waxa uu isku dayay inuu ka dhaadhiciyo maamulka Cismaaniyiinta inay u oggolaadaan degsiimooyin Yuhuudi ah, waxaana la sheegay in ay soo jeediyeen qorshayaal dhaqaale oo ay ku jiraan in ay maalgelin iyo gacan ka geysan doonaan bixinta deymaha boqortooyada. Laakiin Suldaan Cabdixamiidkii labaad ayaa si adag uga hor yimi qorshaha ay Yuhuuddu wateen. Dadaaladii uu Theodore wadayna waxa ay ku dhammaadeen guuldarro. Inkastoo uu niyad jabay, haddana Theodore ma uusan quusan. Muddo yar kadibna waxaa soo baxday qorshihii lagu dejinayay Yuhuudda waddanka Uganda. Dowladda Ingiriiska ayaana soo jeedisay in dhul ku yaal bariga Afrika loo qoondeeyay Yuhuudda. Theodore waxa uu u arkay xal ku meel gaar ah, kaas oo lagu badbaadinayay Yuhuudda lagu dhibaataynayay Yurub. Balse xubno badan oo dhaqdhaqaaqiisa ka tirsanaa ayaa si adag uga hor yimid. Waxa ayna ku adkaysteen in Falastiin ay tahay meesha keliya ee la aqbali karo. Khilaafkaasina waxa uu noqday mid ka mid ah caqabadihii ugu waaweynaa ee Theodore uu la kulmo. Dhanka kalena caafimaadka Theodore waa uu sii xumaanayay. Sannado badan oo safaro joogto ah, shaqo aan kala go'ol lahayn iyo culays siyaasadeed uu daaliyay jirkiisa. Wadnihiisuna uu daciifayay marba marka ka dambaysa. Haddana Theodore weli waxa uu ka shaqaynayay fikirkiisii. Ugu dambayntiina 3 Julaay 1904 ayuu geeriyooday Theodore Herzl, isaga oo da'diisu wakhtiga ay ahayd 44 sano jir oo keliya. Markii uu dhimanayayna ma jirin dowlad Yuhuudi ah oo la aasaasay, mana uusan arkin himiladiisii oo rumowday. Si kastaba ha ahaatee, dadkii fikraddiisa la dhacsanaa waxa ay bilaabeen in ay horay u sii wadaan fikraddii Theodore. Ugu dambayntiina 44 sano kadib geeridiisii, sanadkii 1948 waxaa lagu dhawaaqay aasaaska dowladda Israa'iil. Sanadkii xigayna meydkiisa waxaa laga soo wareejiyey Vienna, iyada oo loo soo wareejiyey buur ku taalla Qudus, taas oo maanta loo yaqaano Mount Herzl. Taariikhyahanadu waa ay ku kala aragti duwan yihiin Theodore Herzl. Taageerayaashiisu waxa ay ku tilmaamaan ninkii dhidibada u taagay qarannimada Yuhuudda casriga ah, halka dadka dhaliila Sahyuuniyaddu ay u arkaan inuu qayb ka ahaa fikrad horseeday khilaafyo waaweyn, taasoo weli saameyn ku leh Bariga Dhexe. Hase yeeshee, halka arrin oo la isku raacsan yahay waxa uu yahay in Theodore Herzl uu ahaa nin fikirkiisu ka gudbay xuduudaha, isla markaana wax riye iyo mal-awaal u muuqday uu ka dhigay arrin dhab ah. Haddaba saaxiibayaal, halka haddaan nala soo gaadheen aad ayaad u mahadsantihiin. Qisadeenna caawana halkaas ayay noogu eg tahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.